odayaashii Carbeed waddo walba oo dacwada nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ay ugu hortagi karaan waa ay mareen. waxa ay nebiga ku soo dacweeyeen qoyskiisa, waxay u imaadeen Abi Taalib, waxa ayna ku dhaheen Abi Taalibow, wiilka aad adeerka u tahay ee Muxamed diinta uu wada dhexdeeniyuu ku dhex faafinin. kadibna inta ay si gooni ah dhexdoodii u shireen odayaashii, iyaga oo ka baqanaya dadka xujayda ee tirada badan marka ay magaalada soo galaan in diintani cusub ee Nebi Maxamed in ay maqlaan, waxa ay bilaabeen in ay suuqa oo dhan ay ku faafiyaan in nebiga saaxir uu yahay. kaalinta ugu weyneed ee mashruucanina waxaa door weyn ka qayb qaatay nebiga adeerkiisii Abiilahab. sanadkaasi markii uu xajka dhammaaday, mushrikiintii Carbeed waxay ku guulaysteen in nebiga iyo dadka xujayda in ay kala geeyaan, balse nebiga waxay u sameeyeen xayeysiis tiro badan. magaalooyin kala duwan iyo waddamo badan oo bilaadu carab oo dhan ayaa nebiga hadalkiisii laga wada maqlay. tanina waxa ay keentay in dad badan ay jeclaadaan in wax un ay ka maqlaan nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. carabtu waxa ay xaqiiqsatay in sha'niga nebiga in uu weyn yahay, sidoo kalena in bilaadu carab oo dhan uu ku faafay. kadibna dhexdoodii inta ay wada kulmeen waxa ay ku heshiyeen in nebiga hab psychology ah inay u soo weeraraan si dadka rumeeya Nebi Maxamedna diinta loo nacsiiyo. odayaashii Carbeed waxay ku heshiyeen dhowr qodob, kuwaas oo ay rumaysnaayeen in dacwada iyo diintaba inay uga hortagi karaan. kow waa in nebiga lagu jeesjeesaa, sidoo kalena waa in nebiga laga dhigaa wax liito. diinta uu sheegay iyo qur'aankuna waa in la yasaa oo laga dhigaa waxba wax aanan ka jirin. sidoo kalena waa in la beeniyaa, marka uu wacdi bilaabana waa in lagu qosqoslaa. tekniiganina hadafkoodii waxa uu ahaa in muslimiinta ay ku maroor dilaaciyaan. dacaayadaha ay suuqa nebiga u soo geliyeenna waxaa ka mid ahaa dacaayada in nebiga laga dhigay in uu waalan yahay. waxa ayna beentani ay ku dhex faafiyeen dadka dhexdooda, weliba marka ay nebiga waali ay ku tilmaamayaan. waxa ay sidoo kale raacsinayeen jeesjees iyo isla weyne, iyaga oo ku qosqoslaya. dadka doonaya in diintani ay ku soo biiraanna markay arkaan dacaayadaha Nebi Maxamed laga faafinayo, waxay sabab u noqonaysay in dib ay u noqdaan. waayo sida caadada dadka dhexdooda, haddii qof laga takoorayo qofkaasina dadka oo dhan hal kelimad qofka haddii ay ku dacaayadeynayaan, qofna si sahal ah lagama yaabo qofka keligii in uu raaco. waayo qof walba marka uu qof uu raacayo waxa uu fiiriyaa majority-ga iyo dadka hadalhayntooda. haddii qofkaasi uu yahay qof dadka oo dhan ay wada ammaanayaan, sida dabiiciga dadku qofka iyaga oo xitaa wax macluumaad aanan ka haysan ayay iska raacaan. tanina waxay ahayd sida odayaashii Carbeed ay doonayeen. qur'aanka kariimka marka uu ka hadlayay dacaayadani suuqa ay geliyeen, wuxuu alle uu leeyahay mushrikiintii Carbeed inta ay nebiga u imaadaan ayaa waxay dhihi jireen, yaa ayuha alladii nuzila calayhi adikru innaka lamajnuun. ninkan qur'aanka ama dikriga lagu soo dejiyow, adiga waad waalan tahay. dacaayadani waalnida ee suuqa nebiga ay u geliyeen saamayn weyn ma aysan yeelan. waayo nebiga marka uu hadlayo hadalkiisu waxa uu ahaa mid miisaaman, qof walbana waxa uu jeclaysanaya in nebiga uu dhegaysto. si kastoo dacaayadani waalnida suuquu uga maqlo, qofna ma uusan aaminin. waxa ay sidoo kale ku dareen in nebiga saaxir ay ka dhigaan, welibana saaxirnimadiisii in ay sii beeniyaan. tanina waxay ahayd tekniiga dhexdoodii ugu caansanaa oo si aad ah u isticmaali jireen, waana tekniigii sanadkii xajka dadka iyo nebiga ay ku kala geeyeen. waxyaabahani oo dhanna marka ay samaynayaan waxaa sidoo kale u raacsanaa jeesjees, isla weyne iyo kibir, iyaga oo la yaaban nebiga waxa uu sheegayo. qur'aanka kariimka waxa uu sheegayaa nacaybka iyo xasadka heerka ay ka gaareen nebiga marka uu soo socdo iyo marka uu sii tegayaba. odayaashii Carbeed ee mashruucani la dagaalanka diinta waday nebiga waxa ay fiirin jireen fiirma tan ugu daran, iyaga oo nacayb iyo kiraahi oo dhan wejigoodii ay ka muuqato. nebiguse indhaha kama aysan leexin jirin. qur'aanka kariimka aayadaha arrintaa ka waramaya, alle waxa uu leeyahay, wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lamaa samicuu adikra wayaquuluuna innahu lamajnuun. waayo heer xagga fiirmada, nacaybka iyo kiraahida waxay ku dhowaadeen in indhahaba haddii wax lagu dili karo in nebiga ay ku dilaan. iyaga oo nacaybka iyo xasadka intaa la eg nebiga u muujinaya, waxay imaan jireen golaha muslimiinta ay ku wada kulmaan. nebigana
marka muslimiinta markuu u wacdinaya dhagaha ayay u soo raaricin jireen. hadallada jeesjeeska ay ku hadli jireen qur'aanka kariimka marka uu ka hadlaya waxuu alle uu leeyahay. hadalkoodii waxaa ka mid ahaa inay dhahayeen ahaa-ulaa'i manna allaahu calayhim min baynina, ma kuwani faqiiriinta ah oo waxba aanan haysan, sidoo kalena waxba aanan haysan, tol fiicanna aanan ka dhalan, iyada oo dadka aqoon-yahanada iyo sidoo kale dadka ganacsatada iyo salaadiintii oo dhan bulshada ay ku dhex jiraan, miyay macquul tahay in alle dadkaasi oo dhan isaga oo arkaya in kooxdani ducafada ah inuu ka soo dhex doorto, weliba moxamed isaga oo waxba aanan haysan oo agoon ah, diin uu hormuud uu ka yahay, iyagoo ay joogaan odayaashii ugu landheeraysanaa deegaankani oo dhan. wax macquul ah ma aha. tanina waxa ay ku qardeen dad aad u badan. sidoo kalena heer beentani iyo dacaayadani waxa ay gaarsiiyeen caado ay ka dhex noqoto dhexdooda. nebiga ama muslimiinta marka ay sii socdaan iyo marka ay soo socdaanba, haddii meel ay ku wada kulmaan way ku qosqosli jireen, iyaga oo dhahayo kuwani xaqiiqdii way dhunsan yihiin. qur'aanka kariimka suuradda mudafifuun alle waxa uu ku leeyahay gaaladii mushrikiinta ahaa ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun. marka qof muslima agtoodii uu soo marana cambirashada iyo qosolka iyo faakihaysiga ayaa u siyaadi jiray. marka ehelkoodii ay u laabanayaanna marxabaynta iyo qosolka iyo faakihaysiga iyo cambirashada muslimiinta ay ku cambirteen iyo sida ay u dhunsan yihiin waa sida iyagu ay rumaysnaayeen ayay dib ugu qosqosti jireen. allana waxa uu leeyahay waxyaabaha ay samaynayaan iyo dadka ay kala saarsaarayaan oo dhan wamaa ursiluu calayhim xaafidiin. shaqo loo dirsada in ay qabtaan midna ma aha. si kastoo dacaayadahaasi nebiga iyo muslimiintaba ay uga sameeyaan meel dheer ah ma aysan gaarin. waxa ay bilaabeen qaab kale inay u gudbaan diintana in shubha ay ku furaan iyo sidoo kale in nebi maxamedba shakhsiyaddiisii in weerar toosa ay ku soo qaadaan. kolkani waxa ay doonayeen qofka marka uu raba in diinta uu rumeeyaba in diinta shubha ay ka keenaan, kadibna qofka ay ka shakigeliyaanba diintii uu rabay inuu rumaysto. sidoo kalena shakhsiyadda nebi maxamed ee nebinimada ah in hoos ay u dhigaan waxyaabo kutirkuteen ah inay ka sheegaan. shubhada koowaad ee qur'aanka ay ku durayaan waxa ay bilaabeen inay dhahaan waa asaatiirul awwaliin, subax iyo galab ayuuna dad kale uu ka soo qortaa. waa waxyaabo ummadihii hore ay ku sheekaysan jireen. taariikhdoodii ayuu nebiga inta uu dib u soo aqriyay ayaa waxuu inooga dhigaa diin cusub. sidoo kale diintani ama qur'aankani uu nebigu uu sheegayo waa been abuur cad, waacaanahu calayhi qooman aqarin. dad aanan la aqoonin oo qarsoodi oo isaga la shaqeeya ayaa barnaamijkani u soo dejiya. waa been abuur, diin saxa ma aha. aayadaha ka waramay kutinkuteenta iyo dacaayadaha diinta ay ka sheegeen qur'aanka mid mid ayuu alle ugu jawaabay. intaa waxa ay ku dareen in nebi maxamed shakhsiyaddiisii in dood ay ka keenaan. qaar ka mid ah dadku waxay ku dhahayeen nebi maxamed siday kaaga dhaadhici kartaa waa rasuul. waa maxay rasuulkani? maa lihaada rasuul ya'kulu dacaam wayamshii fi laswaaq. waa maxay rasuul sheeganaya in alle uu soo diray haddana cunto cunay sida bani aadamka caadiga oo kale, haddana suuqa socda. rasuul alle haddii uu soo diray laasim waxa ah waa in dadka uu ka duwanaadaa, uuna noqdaa mid malaa'igo garbihiisii ay taagan yihiin. waa in sidoo kale sida boqorka oo kale qof loo daba socda waa inuu noqdaa. laakiin rasuul suuqa socda sidoo kalena cunto cuna bani aadam caadi ah oo kale siday macquul ku tahay in nebi uu noqdo? ma aamini karno. nebi maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee intay u imaadaan ayaa waxay ku dhihi jireen maa anzala allaahu calaa basharin min shay. ilaahay wax uu kugu soo dejiyey ma jirto. ilaahayna baahi uma qabo in qof bani aadama waxyi inuu ku soo dejiye. dadka ayaad ka mid tahay, ma tihid wax nebi ah. sidoo kalena nebiyadii horeba hadalkani waxuu ahaa mid nebi weliba qoomkiisii ay ku oran jireen. qur'aanka kariimka aayado badan ayuuna arrintaa kagaga hadlay. nebi walba ee qoomkiisii loo soo dirana hadalkani mushrikiintii carbeed ee nebiga bani'aadanimada ay ku xaqirayaan ama sidoo kale bani'aadanimadiisii ay la weyn tahay nebiyadii horeba waa hadal lagu dhahay. odayaashani carbeed dhexdooda si kastoo ay isugu dayeen in nebiga ay sumcad direen, diintan shubha ay ka keenaan, iyo sidoo kale muslimiinta nebiga rumaysay in ay ku jeesjeesaan marka ay arkeen in waxba aysan ka qaban karin diintana ay sii faafayso dhexdoodii. qaar ka mid ah odayaashii waxa ay dhaheen xaqiiqdii carab dhexdooda waxaa ka soo baxay arrin aad u weyn. wax aanan weligeed laga hortegi karin ayaa carab dhexdeedii ka dhex dilaacay.
Muxamed oo ah mid dhexdeennii laga dhex jeclaa sidoo kalena qof amiin ahaa qof la yaqaanana ah in diin uu dhexdeennii uu keeno odayaashii iyo waxgaradka magaalada oo dhan waxba ay ka qaban kari waayaan waa arrin la yaab leh. xal waxaa ah in nebiga si toos aan ula hadalno, waa inaan heshiis ama kontrakti aan la galnaa, waayo haddii kale diinta nebi maxamed adduunka oo dhan ayay ku faafi kartaa. ugu yaraan si aan uga hortagi karno waa inaan heshiis ama wadahadal la samaynaa. kolkani marka ay xal u arkeen in nebiga ay la hadlaan, nebiga ayay u imaadeen. kadibna odayaashii carbeed waxay u imaadeen nebiga, waxa ayna ku dhaheen, Muxamedow, waxaad wadaa diin cusub, diintanina aabbahaadii iyo hooyadaadii xitaa diintani kuma aysan dhiman, xitaa aabbaha iyo hooyada marka laga tago aboobayaashaadii xitaa diintani ma aysan aqoonin. ugu yaraan maadaama innaga aan kuu turayno, sidoo kalena odayaashii carbeed dadkii ugu waaweynaa maadaama aynu nahay, diintaadii lama xaqirayo, diintaadii xishmad ayaan u muujinaynaa, sanadyada sanad ka mid ah diintaadii ayaan caabudaynaa, adiguna waa inaad sanadyada sanad ka mid ah diinteennii aad caabudaa. kitaabka qur'aanka kariimka waxuu leeyahay, wadduu low tudhinu fayudhinuun. waxa ay aad u jeclaadeen odayaashii carbeed in haaf laga soo tago, iyaguna haaf inay ka soo tagaan oo waxdatul adyaan diin la dhaho oo cusub in halkaa ay ka dhalato. weliba arrintani waxa ay nebiga u sii raacinayeen, waxay dhahayeen, laga yaabay in diintaada Muxamedow in ay saxan tahay, haddii ay saxan tahay xitaa annagana ugu yaraan dheefta ilaahaagii sanadyada ka mid a way ina soo gaari maadaama aan caabudno. sidoo kale laga yaabay in diinteennii ama sanamkeennii inuu saxan yahay, adiga ama muslimiinta ku raacsanna diinteennii markaad caabudaan dheefta ilaahyadeennii sanad ka mid ah sanadyada adinka ayay idiin soo gaari doontaa. sidaasi darteeda heshiiskani haddii aan samayno, labada dhinacba ilaahyada si isku wada mid aan u wada caabudno, adiguna dhib kuma soo gaarayo, innaguna dhib inama soo gaarayo. ilaahyada si isku wada mid ah waa inaanu caabudnaa. hadalkani kufriga marka ay la yimaadeen waxaa soo degtay suuratulkaafiruun. alle waxa uu ku dhahay, heshiiskaasi waa wax kama jiraan, lakum diinukum waliya diin. adinkuna diintiinni ayaan leedihiin, annaguna teeni ayaan leenahay. odayaashii carbeed waddo walba oo nebiga ay u mareen marka ay ku guuldaraysteen, sidoo kalena kontraktiga ay hamiga ka lahaayeen markii ay ku guuldaraysteen oo lakum diinukum waliya diin lagu dhahay, waxa ay bilaabeen si toos ah in nebiga iyo muslimiintaba inay la dagaalamaan. intaa kadib odayaashii carbeed hal meel in ay ku wada kulmeen ayaa waxay ka wada sheekaysteen sida diinta nebi maxamed ay u socoto iyo sida qorshe walba ay soo bandhigeen loogu fashilmay. kadibna waxaa xal lagu gaaray in magaaladani Maka sharciyo cusub in loo dejiyo. odayaashani waa kuwii sharciyada dejin lahaa, waana sidoo kale indhihii bulshada dhexdoodii. inta ay wada kulmeen ayaa waxay soo saareen sharciyo ay ka midka yihiin, hadda kadib magaaladani ma uu jiri doono qof nebi maxamed rumayn kara, qofkiisa rumeeyaa waxa ay carab dhadhansiin doontaa cadaabtan ugu daran. sidoo kalena dadka ducafada ee nebi maxamed rumeeya waa in ciqaabtan ugu daran waa in la marsiiyaa. sidaasi ayaana Muxamed looga hortagi karaa. haddii sharcigani la soo saaro, qof walba ee nebi maxamed rumeeya qoorta laga jaro ama qofkaasi la dilo, diinta ma ay faafi karto, qofna ma uu rumayn karo. dadka hadda rumeeyena waa in ciqaab daran la marsiiyaa. Muxamed ugu dambayn isaga ayaa iskiisii u dhiman doono, diintanina ma ay faafi doonto. heshiiskani markay isku wada waafaqeen waxay u gudbeen in ay ku dhaqmaan. haddaba halkani ha inoo joogta heshiiskani sida ay ugu dhaqmeen iyo halka ay wax ka bilaabeen waxaan ku arki doonnaa muuqaalka dambe haddii uu Eebbe raali ka noqdo.